بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijka aan idinku haynana waxa kamida waa ciidamada dawladda Suudaan oo galabtay la wareegay gacan ku haynta magaalooyin muhiim ah oo ku yaal gobolka Kordofanta Koonfureed halkaasi oo ay ka dhaceen dagaalo la isku riiqmay madaxweynaha Colombia oo si adag uga hor yimid go'aanka Trump ee xiritaanka hawada Venezuela iyadoo xiisada Caribbean-ku wali cirka ay ku shareeran tahay Hamas oo la sheegay in ay magacowday bedelka dhammaan mas'uuliyiintii dhanka siyaasadda iyo kuwa ciidamada ee looga dilay dagaalkii Israa'iil ay la galeen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo shaaciyay agab istiraatiiji ah in lagu kordhin doono ciidamada dalkiisa iyadoo ay taagan tahay dhiilada colaadeed ee gacanka Kuuriya militariga Israa'iil oo qiray in feejignan ay kaga jiraan weerar laga soo qaado Suuriya iyo Lebanon sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinku hayaana waxay ku aadan tahay caafimaadka iyo badqabka xagga maskaxda madaxweyne Trump oo shakal la geliyay yaa arrintan sheegay maxayse ku aadan tahay waardii faahfaahin doonaa caawa waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka waddanka Suudaan iyadoo dagaalo culus ay socdaan ayaa wararka caawa soo baxaya waxaa ka mid ah in ciidamada qalabka sida ee Suudaan galabta ay la wareegeen dhowr deegaan oo istiraatiiji ah oo ku yaala galbeedka magaalada Abaasiya Taqili ee gobolka Kordofanta Koonfureed kadib dagaalo xooggan oo ay kula galeen aagaasi ciidamada RSF iyo kuwa SPLMN garabka Cabdulcasiis Al-Hilo goobjoogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka Anadolu in ciidanku ay si buuxda u galeen deegaanada Tibisa Damra Garduud Jamac iyo weliba Al-Muarib kuwaasi oo horay gacanta ay ugu hayeen RSF iyo mucaaradka lagu magacaabo SPLMN qabsashada deegaankan ayaa dadka deegaanka waxay ku waramayaan in ay joojisay weeraradii joogtada ahaa ee lagu qaadayay magaalada Abaasiya ciidanka dawladda Suudaan ayaa baahiyay muuqaalo ay ku muujinayaan gacan ku haynta deegaanada Tibisa iyo Damra iyadoo la arkayay dadka deegaanka oo u dabaaldegaya ciidanka halkaasi marka ay soo galeen ilaa hadda ma jiro war faahfaahsan oo ka soo baxay dhanka RSF iyo jabhadda SPLMN oo ku saabsan dagaaladani cusub gobolada Kordofan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa ka aloosnaa dagaalo culus oo u dhexeeya ciidanka Suudaan iyo RSF dhanka arrimaha siyaasadda gudoomiyaha golaha sare ee militariga maamula dalka Suudaan General Al-Burhan ayaa magaalada Port Sudan kula kulmay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay Ramtane Lamamra isagoo sheegay in dawladda kumeel gaarka ay diyaar u tahay iskaashi dhanka bini'aadantinimada iyo horumarinta ah Lamamra wuxuu carabka ku adkeeyay in wali ay jirto fursad wada hadal oo ku aadan Suudaan oo lagu joojin karo dagaalka qaramada midoobayna ay diyaar u tahay taageerada dadaaladaasi RSF waxay gacanta ku haysaa inta badan 5 gobol ee uu ka kooban yahay Darfur halka ciidamada dawladdu ay maamulayaan 13 gobol oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Khartoum waatahay bal xagga Afrika intaynu ka baxno aynu eegno dhankaas iyo qaaradda Asia iyadoo xiisad culus ay ka taagan tahay gacanka Kuuriya ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un wuxuu ku dhawaaqay in agab cusub oo istiraatiiji ah lagu wareejin doono ciidamada waddankiisa haddaba wararkii ugu dambeeyay amuurahan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Yaxya Ciise hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ku dhawaaqay qorshe cusub oo ciidamada cirka dalkaasi lagu siinayo agab ciidan oo cusub oo istiraatiiji ah isagoo carabka ku adkeeyay in tallaabadani ay siin doonto ciidamada cirka dalkaasi tallaabooyin muhiim ah iyo marxalado cusub oo soo socda hadalkan ayuu Kim jeediyay intii lagu guda jiray xuska 8aad ee aasaaska ciidamada cirka munaasabada ay ka soo qayb gashay gabadhiisa Kim Jo-e oo warbaahintu ay sheegtay inay noqon karto qofka bedeli doona isaga mustaqbalka sawirro ay baahisay warbaahinta dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaya Kim iyo gabadhiisa oo daawanaya duulimaadyo tababar oo ay sameynayaan diyaarado dagaal diyaarada aan duuliye lahayn ee loo yaqaan droniska iyo gaadiidka gantaalada guurguura ay ku rakiban yihiin Kim ayaa sidoo kale kormeeray diyaarado ay ka mid tahay mid loogu talagalay
digniinaha hore oo Pyongyang ay soo bandhigtay horaantii sanadkan. Wararka ayaa sheegaya in Kuuriyada Waqooyi ay bilowday soo saarista tiro badan oo diyaaradaha droniska oo yaryar iyo kuwa masaafo gaaban, sidoo kale droniska weerarka oo waaweyn oo lagu isticmaali karo goobaha dagaalka, sida uu xaqiijiyay sarkaal sirdoonka Ukraine ka tirsan. Wakaalada wararka rasmiga ee Kuuriyada Waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo KCNA ayaa sheegtay in Kim uu adkeeyay doorka muhiimka ah ee ciidamada cirka ka qaadan doonaan fulinta awoodaha ka hortagga nukliyeerka, isaga oo muujiyay in dalku uu ka filayo ciidamada cirka waxyaabaha runtii waaweyn. Sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada cirka loo xil saari doono in ay ka hortagaan dhammaan noocyada basaasiinta iyo faragelinta military ee cadawgu uu sameyn karo. Hadalka Kim ayaa imaanaya iyada oo ay kasii dareyso xiisadda Kuuriya, iyadoo Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay in Kuuriyada Waqooyi aysan kasoo jawaabin dalabkii wada hadal ee looga gol lahaa in looga hortago dagaal military oo lama filaan ah. xiisadaasi intaynu kusoo gudubno xiisad kale oo aloosan aynu eegno waa gacanka Caribbean-ka. madaxweynaha waddanka Colombia Petro Gustavo ayaa si kulul u cambaareeyay ku dhawaaqista madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku dhawaaqay in hawada waddankaasi Venezuela si buuxda loo xiray. Petro wuxuu tilmaamay in aysan jirin wax ogolaansho ah oo ka yimid golaha ammaanka ee qaramada midoobay ama koongareeska Mareykanka oo sharciyeyn kara faragelin military. Petro ayaa ku baaqay in loo yeero kulan degdeg ah oo ay qabato hay-adda duulista rayidka adduunka ee ICAO, isagoo sheegay in tallaabada Mareykanku ay tahay mid qaanuunka ka baxsan oo halis gelinaysa xasiloonida gobolka. Trump ayaa sabtidii diyaaradaha maraya hawada waddanka Venezuela wuxuu ugu baaqay in hawadu ay xiran tahay, iyadoo Mareykanku ciidamo badan ay ku daabulayaan biyaha Caribbean-ka. Caracas waxay arrintaasi ku tilmaamtay hanjabaad guumaysi iyo ku xadgudub madax bannaanideeda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Venezuela ayaa ka shanqarisay in hawadoodu ay shaqaynayso, isla markaasna ay ku shaqayso heerarka ICAO, iyadoo tilmaamtay in aan la aqbali doonin wax faragelin ah. waxay ku tilmaamtay hadalka Trump tilaabo hal dhinac ah oo cadowtinimo ah. docda kale iyadoo xiisaddu ay sii xoogaysanayso ayaa ilaa iyo 6 shirkadood oo duulimaadyada koonfurta Ameerika waxay joojiyeen duulimaadyadii Caracas ay ku tegi jireen waa caasimadda Venezuela, arrin dowladda Venezuela ay ku tilmaamtay inay tahay xadgudub, iyadoo ruqsadii kala laabatay dhammaanba shirkadahaasi. warbixino kale ayaa muujinaya in Mareykanku uu kordhiyey howlgallada dhanka badda ee Caribbean-ka iyo Pacific-ga, kuwaasi oo sababay dhimashada in ka badan 80 qof, taas oo khubaradu ay ku tilmaameen dilal qaanuunka ka baxsan. madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa amar ku bixiyey feejignaan military oo buuxda, waxaana la diyaariyey 4,500,000 oo ciidamo iyo shacab isugu jira, kuwaasi oo loo diyaariyey suurtagalnimada weerar uga yimaada Mareykanka waddankaasi. senatarka xisbiga dimuqraadiga ka tirsan Tim Kaine ayaa uga digay xaaladan inay u gudubto dagaal ballaaran, isagoo sheegay in koongareeska uu doonayo in uu xadido awoodda Trump ee ku dhawaaqista dagaal military. waa tahay qodobkaas halkaas aynu kaga gudubno. waxaan u gudbaynaa war la xiriira Xamaas oo magacowday dadkii bedeli lahaa hogaamiyaasha dhanka siyaasadda iyo kuwii ciidamada ee ku dhintay dagaalka Israa'iil ay kula jirto. waxaan kaloo idin haynaa war ku saabsan Israa'iil oo feejignaan kaga jirta howlgalo military oo uga yimaada Lebanon iyo Syria. waa tahay intaan idin soo gudbin sheekada Xamaas oo ku saabsan magacaabista ay magacowday boosaska hogaamiyaashii laga dilay, aynu ka hormarno Israa'iil oo feejignaan ku jirta. waxaana la sheegayaa inay ka cabsi qabto weeraro uga yimaada Lebanon iyo Syria. taliyaha qaybta waqooyi ee ciidamada Israa'iil ee buuraleyda Golan iyo xadka Lebanon, General Ravi Milo, ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil heegan culus ay ku jiraan gaar ahaan dhanka Suuriya iyo Lebanon. Milo wuxuu sheegay in howlgallada ka dhacay magaalada Beit Jin ee Syria ay cadeynayaan muhiimadda sida hadalka uu dhigay tillaabooyinka ka hortagga ah ee lagu baajinayo weerarada ka imaan kara gudaha Suuriya. dhinaca kale xiisadaha siyaasadeed iyo military ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Lebanon ayaa sii kordhiya, iyadoo Tel Aviv ay uga digtay Beirut iyadoo u maraysa Mareykanka inay ballaarin doonto duqeymaha gudaha Lebanon
haddii xisbullah aan hubka laga dhigin warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in israa'iil ay qorsheynayso inay beegsato bartilmaameedyo ay horay uga gaabsatay sababo la xiriira cadaadiska maraykanka xadka siiriya dhaqdhaqaaq militari oo xooggan ayaa laga soo sheegayaa oo ay ku jiraan duulimaadyo dhanka seerdoonka iyo weerar dhulka ah telefishinka kanaal 13 ee israa'iil laga leeyahay ayaa sheegay in dhacdadii deegaanka beijing aysan ahayn qorshe hore loo dejiyey balse ay ahayd falcelin ka timid dadka deegaanka oo ka jawaabaya joogitaanka ciidamada israa'iil waa hagaag dagaalka labada sano socda ee xamaas israa'iil ay la gashay hogaamiyaal muhiim ah oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa xamaas ayaa la dilay oo qaarkoodna marayka qase lagu dilay kuwana meelo ka baxsan qaza oo dibadda ayaa lagu dilay haddaba xog cusub ayaa soo baxday oo arrimahan ay la xiriirta ila wareedyaha rasmiga ayaa waxay xaqiijiyeen in xamaas ay u dhaqaaqday dhammaystirka dhammaan magacaabista jogooyinka militariga siyaasadda iyo kuwa maamulka kadib markii tobanaan ka mid ah hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqa lagu dilay dagaalka israa'iil ay kula jirto ila wareedku waxay sidoo kale sheegeen in xamaas ay magacawday taliyaal iyo ku-xigeenno cusub oo ka tirsan kataa'ibul qasaam golaha shuurada iyo xafiiska siyaasadda israa'iil ayaa intii uu socday dagaalka waxay beegsatay tiro badan oo ka mid ah hoggaanka xamaas waxaana bishii January 2024 duqeyn israa'iil ay ka fulisay magaalada Beirut ay ku dishay Saalax al-Caruuri ku-xigeenkii madaxa xafiiska siyaasadda ahaana aasaasaha kataa'ibul qasaam waxa uu ku suganaa magaalada Beirut bishii July 2024 israa'iil waxay magaalada Tehran ku dishay Ismaaciil Haniya madaxa xafiiska siyaasadda ee ururka bishii Oktoobar ee sanadkii hore waxaa howlgal military iyo iskoorimaad ka dhacay Rafax lagu dilay Yahya Sinwar madaxii xafiiska siyaasadda ee Gaza Marwan Ciise ku-xigeenkii taliyaha guud ee kataa'ibul qasaam ayaa isna bishii March 2025 waxaa lagu diray duqeyn ka dhacday deegaanka Nusret bishii Abriil ee sanadkaasi waxaa lagu soo waramayaa in ay dhinteen hogaamiyaal kale oo muhiim ah sidoo kale Israa'iil waxay dishay Maxamed Daif taliyihii guud ee kataa'ibul qasaam oo ku dhintay duqeyn ka dhacday Khan Yunis bishii June Saalax al-Bardawi oo ka tirsan xafiiska siyaasadda Xamaas ayaa lagu dilay Khan Yunis waxaana lagu soo waramayaa in sidoo kale la dilay Ismaaciil Barhum oo isna ka tirsan xafiiska siyaasadda howlgal kale oo ka dhacay marayka Gaza Israa'iil ayaa sidoo kale waxay ku andacoonaysaa inay dishay afayeenkii garabka hubaysan ee Xamaas ee kataa'ibul qasaam Abdulladiif al-Qanuuc oo loo yaqaan Abu Ubayda bishii Agost weerar ka dhacay bartamaha Gaza inkastoo Xamaas aysan xaqiijin dilkaasi sidoo kale ma jiraan ila wareedyo xaqiijinaya dilkiisa haddaba inkastoo Xamaas ay ku dhawaaqday dadkaasi bedelkoodii laakiin haddana waxaa la sheegayaa in weli aan lahayn magacyada dadka lagu bedelay arrintan iyo khibradu waxay ku macnaynayaan inay tahay xeelad ay u tala gashay Xamaas in xilligan aysan shaacin magacyada mas'uuliyiintaasi waa tahay sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay ayaynu soo gaarnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo caafimaadkiisa shaki la geliyay haddaba aynu eegna sheeko arrimahani la xiriirta waa hagaag waxaa lagu soo waramayaa arrintan in uu sheegay gudoomiyaha gobolka Minnesota ninka lagu magacaabo Tim Walz waxaana uu sheegay in ay tahay muhiim in la soo bandhigo baaritaanka MRI-ga ee madaxweynaha waddanka Maraykanka Donald Trump hadalkan ayuu waxa uu ka sheegay isagoo ka jawaabayay ficilada iyo hadallada ka soo yeeraya madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee la xiriira arrimaha gobolkaasi gaar ahaan magaalada Minneapolis halkaasi oo Donald Trump inta badan uu weeraro dadka Soomaalida madaxweynaha Maraykanka oo 79 jir ah ayaa horaantii bishii Oktoobar waxaa la sheegay in lagu sameeyay baaritaan MRI isla markaas natiijooyinka ay hayeen kuwa quman sida hadalka loo yiri ha yeeshee laba shaacin taasi oo dhalisay mala awaal khilaafkaasi awgiis ayaa waxaa la sheegayaa Walz oo si aad ah isku dhaliilan Trump in uu dalbaday muhiimadda ay leedahay in la soo bandhigo caafimaadka madaxweynaha waxaana la sheegayaa in inta badan hadallo kulkulul ay hawada isu marayaan Tim Walz oo ah gudoomiyaha gobolka Minnesota iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxaana arrintu ay sii xoogaysatay kadib markii muwaadiniinta Maraykanka ee asalkoodu yahay Soomaalida ee gobolkaasi ku dhaqan Trump si adag uu u dhaliilay Tim Walz ayaa isna xabadka u difaacay u garaacay Soomaalida waxaana uu sheegay in ay yihiin muwaadiniin Maraykan ah isla markaasna
hadallada madaxweynuhu ay yihiin kuwa ay ka muuqato nacayb sida uu yiri waa tahay sheekadaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo